السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتا شرفت له ميل كستو عالمك iyo dunida ba ka joogtaan waa maskiinkii alle walaalkiin Cabdiraxmaan bin Cabdullah bin Xaaji oo ku sugan makhaayada Safari oo ay ka dhacayso xafladda qiimaha badan ee dhacaysa maalinta Axadda waxa saad u jeedaan halkaan noo fadhiya MMS Mama Malyuun ماما مليون كسو دو ماما مليون ماما صوبا ما شاء الله مليون قبدي وعدرها قد قتي برها بالشدة ما شاء الله تبارك الله وملنا ماما مليون بزيدي هواكي ماما مليون ما شاء الله كسو دو هل كان وحاك هاقم وضع سعيد بلاكي ما شاء الله وإنن كسكلا مخايدة سفاري ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك واحسن الله اليك يعني فرصه ان نوصينا هل كان كقبسنا حفلات ما شاء الله ادي قيمه بدن adigoo ku taageeraya diinta Allah iyo masjidka ma sha Allah marar badan oo kalena waa ku qabsan doonaa insha Allah jazakallahu khayr halkana waxa fadhiya ina qalin la samay ina alkamin ma sha Allah ma malyin ku soo dhawow ma sha Allah barakallahu fiik soo dhawow MMS shacabkaagii ayaa halkaan ku fadhiya oo soo xigtay dhambaantood ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله horta waxaan ugu hambaleynayaa halkaan wiilka iskale Safari aad baan ku soo dhaweeyay in aan ku dhigano ibantiga Safari waxaan meeshaan rabnaa inaan Soomaalida u sheegno horta shacabka Soomaalidu dad la heli karo ma ahan waa dad wanaagsan waan idin dhaliilay dadkaan dhaliilayna waa is yaqaanaan baalaha laga rifaaya dadkaas laakiin masaajid laga seexday dadka ka seexday waxay la tahay meeshaan war baa u yaalna laakiin Soomaalidu waa dad wanaagsan waa dad shacabkeedu aad u fiican waxyaalo badan oo aan soo wadno oo indhaha idin kala furi doona oo baraarujin ah oo farxad ah oo qoyska leh oo caruurta leh oo dhalinyarada leh oo iyo qaar kaloo badan inta waa soo wadnaa laakiin maxaa idin leeyahay anigu honno hadal maaha hembarersi arag maaha baan mar walba idin dhahay horta micnaheedu waa idin bam oo hadana bam oo hadana bam marka waxaan idin sheegayaa Soomaaliyay horta hameenkaas marka aad horta timaadaan dad badan horta waa masayri doonaan bis markaad tiraadaan anna waxaa idinku jawaabaya waa aqaanaa maxaa idinku jawaabaya bam oo haddana bam been baa barateena baalaha la iska rifayaa laakiin farxad weyn iyo qosol weyn iyo waxyaalo badan oo idnaan aqoon waxaad nagu taqaaneen iyo wax kale oo badan intaba waa heli doontaa su-aalaha la isweydiinayana waxa weeye oo waxaan soo wadnay yaa kuu sheegaya inaad timaadada aragtid maahane who knows you know dad badan oo kulahaya uma socono ayagoo meesha fadhiya saw waxay og yihiin ama waxay rajaynayaan in looga sheekeeyo inay diidaan tigidhadii lagu soo galayay eventigan wax yar baa haray xoogaa fiican baa la gatay intii badnayd waa tii la bedelay tigidhada
oo barayska la yareeyey iyadoo loo naxariisanayo Soomaalida loo naxariisanayo dad badan oo aan arkay hadda intii tigdhadiiba ay keeneen ba eventiga imaanaynin ay lacag ka badan tigdhadiiba keeneen oo ay diyaar leeyihiin inay caawiyaan masaajidka Soomaalida horta dad xoolaha isku dila maaha laakiin waa dad qabyaalada isku dila marka meeshaasna dee qabyaalad kama socoto xoolahana kullay mar walba waa la taaganahay marka dabca sariya aniga kullay warbaa isku kaayasay gar halkaana dee cunta iga dheh halkaan waxaan macaan marka la cuno Allah yaa ku sheegay dee waxaan ugu soo wadno dhaaxawaad qosli dhaha waxaan kula dardaarmayaa soo gali doona eventigaas ama showga soo gali doona kollay oo inta u qoslaysid oo meelka doonaaye soo qaado meekaabka guriga ha uga soo kicino boorsada ku soo rido honno hadal maaha hemberirsi arag maaha kollay soo qaata meekaabkiina ka soo kicinina raggana waxaan kula dardaarmayaa dee naabakiinka yarkaa waa kaa qoyayaa shukumaha yar iska soo gado marka dabcan waxaad kula dardaarmaysaa dadka adiguna adigaan xaggaaga u daayeen أنا وحلا ما مليون آدي آد بعد قم صنتها جزاك الله خير وأحسن الله إليك وبارك الله فيك يعني أن هوشي للربي إن رجوا أي قبطان أما علماء أي قبطان أما مساجد أي قبطان وهيد إن قريها إلهي سبحانه وتعالى لدسو آيات ما مليوني وقرب لقتي أن أبي إسر بعد نقول له هاي إلهي سبحانه وتعالى هكا أشرسيو والدينتا إلهي هؤلاء أشري حسنات إلهي هؤلاء أدي الله كوجليو الله كو حفظيو عروت الله كو حفظيو ددي الدين الدنيا يدرجة آخرة يمد الدنيا بالله كو سيو سمالوين وقت عشاي وقت تاجر سنتهاي الجسيد هليد عذكر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عزه الشرف يكرامه ينور إلهي سبحانه وتعالى كو زياديو إلهي سبحانه وتعالى مراد كاغسن أو سبحان الله كو سخره وحكافر حي الله كو تسو وحكان حي الله كو متسو سمالوين وحلنا هابين كاسوا هابين قيمة بدن أو قاية بدن أو شرف له أو كرامة له أو أتكوها المامي دونتان يعني والول فربدن والبهار فربدن كربة فربدن عريري فربدن يعني إصلاحات الفربدن أتكوها المامي دونتان هبين كاس أو ستريس فري ستريس يعني دبريش هذا صار ستريس فري بالله ستريس محلها ستريس فري ستريس فري ما شاء الله ستريس فري liberation anxiety and all the والول كربة دمك محينا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والول كي مروتي كربتي aad bino aysa dhalinyarada hadaan nahay yararka ma aragtay waliba dadka hadda soo koray waxa way waa loo baahan yahay arrimaha qoyska seminaaran qaata xaqa the rights of man the rights of husband the rights of woman dhalinyaradu way isguursanayaan way isdirirayaan the correct path to have a good successful marriage marka الزواج الناجح the successful marriage ما شاء الله ادي اد بدو ما صدق ما شاء الله مقليسان waxaan idinku celinayaa ma milyan iyo mikrofoonka oo idin la habeenkaas yaani axada ku soo dhawaada hanasaygina una gargaar xaqa iyo diinta ilaahay waxay culimadu maxaad ka leedahay maamuli taas wallahi culimada kulay anigu mararka badan aan ka hadlana reason kan uga hadlay waxa weeye anigu mar walba wanaagan jecelahay hooyo Soomaaliyeed isxil qaantay ee ku shaqeysa waa iska wax u qabso hooyo Soomaaliyeed oo waxaan ahay horta iska wax u qabso ku shaqeysa waxaan ugu shaqeynayaa waxa weeyaan dee anigu waxaan ahay geesiyad anigu idinka amaanada kama sugaayaan idin horaan u soo xaydxaytay anigu rasameygayga jeebkayga aan ku wataa anigu maamo qurux badan baan ahay maamo geesiyada maamo ما شاء الله اسكو maamo Soomaaliyeed baan ahay maamo isku filan baan gabar dhalinyaro ah tamaam maamo wax ku sheegi kartaan ahay marka ما مليون كلك فتامي عن كوكب إسلام وين بقوا يستمر كده مايا هذا إذا أم إكيو صوت أنا وإكي وحوي وحلا يقرصون سكرت كأنا باربا قبل بدنا وحركة صدق شريو لباتني شريو أفرتين شريو قبوي بارا المحاضر القاس قبل بدنا وحركة صدق شريو سلاتين شريو أفرتين شريو صدقني شريو أو إذا يرى وحركة قبوي بان waxaan rabaa siday u dhalinyaraan lahaayeen falankooda qabto sababtuna waxa weeyaan qofka bil aadanka ah wuxuu qurux badan yahay waa goorma waa markuu farxo marka iyaga waxba u qarsoon aniga waxayga waxyaalo badan baan ku amaaniga dheh ana is amaana marka dadka dhan baad ku martaqaadaysaa meesha kaaliyadoo dhan iyo dumar iyo dhalinyaro iyo meel dhaxaad iyo kuwa isqaba iyo garoobada
iyo wax walbaba iyo kuwa badan oo qarinaya 15ka iyo plus intaba meeshaan aan ku martiqaaday wax kaloo qarsoonna dee ma ogidinoo secret baa qarsoon dabca sar iyo aniga dusha iska kaaya saartee maxaan soo wadnaa yaa kuu sheegaya dee inaad timaadid maahane hadhow maxaan u joogi waayey kaa yeerin meesha iskeen baan ku iri so waxyaalo badan baan soo wadnaa marka dabca sarow dadkuna ma oga saliid zaytuunkii anigoo wata oo indhahaasa u fiiqaya iyo mahmaluun oo qareed la ordaysa isku arkayaa meesha oo la isku arkaya waxyaalo badan baa jira dadkan ku haya dadkan ashuunka ku adimayo wax qarinaayo qabto noloshu waxay horta ka qabto ما مليون وحى waxaan rabay inaan ku weydiiyo ma milyan waxa oo lagu soo jiidan karo oo da'aanteeda maxaa hadalka ugu macaan u maleynaysaa lagu soo jiidan karo hadda gabdhii waxa aynu habeenkaas habeenkaas waxaan kuu sheegayaa wiilal badan baa gabdhaha duraya gabdho badanna wiilashay duraya anigu labada dhinacba horta way soo xiriiriyaan waana ila soo xiriiraan laakiin faahfaahin badan oo ka hayo ama gabdhaha ay ogaanayaan waxa jira horta anigu gabdhahan u heliyaa horta idiin sheego wiilasha wax waa u sheegaa laakiin idinku shiikha iyo dabca saro miran baa idiin joogo oo dadka ka wada hadal dheer laakiin gabdhaha raggi baan baradheereeyey marka maadaama aan ragga baradheereeyey gabdhaha anigaa u hadla marka gabdhuhu waxyaalo badan wax badan ay idinku dhaliileen baa lasoo bandhigayaa waxaasna waxaa weeye walba oo jira horta la isfahansiiyo iyo qaar kaloo badan marka waa lasoo bandhigayaa baa tiri wax kasta oo jira waxa weeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa faqu fagaaru taga wax kasta oo jira anagu waa soo bandhigaynaa yaala badan waxaan soo wada xataa dabca sar baan qaarkood ogay waa ka qarsanaya soo dumar baanaha waana rag isku halaynaya bam وهذا بام بين بابرتين وحياة بدن باي قرصون لكن عياري واقلين دنبه عياري واحد غربة حد إنه ياله دad badan oo rag baa masayro halkan waxay leeyihiin nin loo king wuxuu leeyahay dabca sar shukaansi oo iga badiyay buu leeyahay marka wuxuu leeyahay maya masayr baa qaaday malyuun biga qaadanaya buu leeyahay hadii ay ku idmaayo caadi weeyada ninkii fiican baa reerka u haraya marka ma milyuun dad baa islaan u qabay laakiin dhowr bariyoon suuqyada wareegayay dad badan baa arkay indha gacal baa lagu fiirinayay markaas waxa la ii qabay islaan yar oo meelahaas ka soo wiiqlaa la ii qabay laakiin lagos iga dheh سعد العسرو ايش غربة كسر سعودية قص ما شاء الله مليون يقص شقص لاقص وربا يا سلام لقص شيء انا كبد المحاد مودادي انك يا هكذا حبابه تبع عسرو هذيك حتى لقص شيء كبد هدان كان انا كور ما شاء الله بارك الله فيك ما مليون آدي بدو السلامة وما صنتهاي حقيل وقبني حفلة ما مليون حفلة وحا لو قبنيا سفاري وان هدا كعنيو انتظر اللي يراهدو كي ان بان عادي هاين سفاري هول في عم بيلاد هاي سفاري سيفتي جدو وناكسن هاي سفاري وميل Soomaali badan wax ku dhigato waxa ila tahay wax kala qarsoona waa soo wada oo waa soo bandhigaya insha Allah oo dad badan oran waayay ay oran doonaan maama milyuun maxaa hore ugu soo sheegi weyday marka waa inoo goorma iyo meelma iyo meeqa halkaan ay ka shidnaanaysaa laakiin waxaan arkayay dad badan oo leh axadu fogaa awal waagi hore markay muddo dheer ka dhiman tahay way iska sugi jireen hadda markay soo caraftay oo maanta khamiis tahay jamcaha iyo sabtida yaa jara dad lahaban maqlaayay marka lama jarayee way iska iimaan Allah nabad nagu gaarsiiyo marka waxaan leeyahay Soomaalida meel kasta adduunka ka joogtaan waa idin salaamaya waa MMS waa maama milyuun suuban waa maamada geesiyada ah waa maamada aqliga badan ma sha Allah waa maamada markasta jecel baraarujintaada iyo wacyigelintaada iyo aqliyeyntaada kuugu taagan inaan wixii khaldan ka saxo wixii fiicanna kugu taakuleeyo
marka waxaan idin leeyahay yaa waa la doognayaa la dacaroon ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ومن مليون أو كواع سمي صاحب لدى قيمة يقاياها لأي كده حيسا هول كسفاري إيه مقالة مينيابوليس ووددا ويست ليك and forth weeye baarkana waxa way wax kasta waa la hayaa hadda ku soo dhawaada maamada Minnesota maamalyuun iyo dab casar ah oo noogu ah ii sheeg marti noogu ah magaalada ما شاء الله ما شاء الله security ku habeenkaas aad iyo aad ayuu u sareeyaa dhalinyaro Soomaaliyeed askar cid walba waa ku diyaar security waa sugan yahay عندوف اسمه طفيل وشاد يا عندوف تا security ka سكورت meesha noo horta سكورت waxaa noo xil saaran city of Minneapolis iyo anako securitykeena heesano hubaysan of course Minneapolis baad joogtaa ogta hadda صح marka ciyaarta candufta tutufaysa iyo dadka meelaha ka qaqleenayo buuqaas meel kale uga soo taga markaad meeshan imaanaysaa ninkan aad u jeedaan waxa weeyaan waa al-ugasdiiniyi al-marixaaniyi reer siyaadi weeyaan waa nin ahaan jiray ciidamada raalab waa ka xumay waa nin ahaan jiray ciidamada marineska baan jiray maanta navy-ga iyo marineska labadaba wuxuu ahaan jiray ciidamada navy-ga intaasan ka watay ciidamada navy-ga iyo marineska maxaa soo ahaan jiray navy-ga iyo marineska marka navy iyo marineska maxay kala duwan waa iska waa biyo iyo dad waxa weey dadka marineska ee dhulka navy-ga badda marka ciidamada badda iyo ciidamada dhulka waa soo maray يا سلام يا سلام يا سلام برق ورانجرز بتوتا برنتا marka waxaad leedahay meeshan meel lagu ciyaari karo oo lagu kaftayn karo oo la iska waama soo dhawaada waan soo dhaweynaysan dadka aad iyo sin xariis kal gacayl walaalnimo leh soo dhaweynaya ya wala cadaani qosab baa lagu soo dhaweynaya iyo farxadtan wixii buuqna waxa way magaalada ugu soo tagaysaa xaq halkan kama jirto isqabqabsi iyo buuq iyo lagu tusaday meesha wax lagu hayo maya meeshaani waxay noqonaysaa meeshaan dad khiyaaraha qabanaya maama malyuun waa maama Minnesota ku dhalan gaartay waa maama Minnesota waqti badan joogtay waa maamada waxay xaydatay inay runta ku barto bam hadana bam baa barateen baalaha inaan wax ka rifa u diyaarsan laakiin waxaan idin sheegayaa in aan wax walba u diyaarsanahay annagoo bahda social media aad baan idinku soo dhaweynaynaa hadal badan haama lagama buuxiyo laakiin laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego Soomaaliyay waa inoo ballanteenu waa inoo hameenka axadda haddii aan noolaano annagu waxaa idinka ballan qaadaynaa haddii alla nafta noo daayo aniga iyo dabcasar dusha iska keen saareene يا سلام يا سلام أريجا سوى الله رياقي ما شاء الله ما شاء الله يدون هالكنا وحين نفرد ولا شيء هذن أو كقريب قادنس ما شاء الله هذن مالنتاس وينك إن شاء الله وين ما نسى هذن تمادا هذن ما شاء الله قبر صوماليات وهالكان ما آد أبرام برتا يدون واجبتا ويمان الس وريح حاج سليمان ما شاء الله الها برقدرية العربية ما شاء الله وأنا شفتها أيضا والسومالي وين ودمها هالكان قرنا الله ما كلارين وأنا لا يسوي إيمان لما أنتي ماشى تنوى كم ارتقادنتي ما شاء الله. ما أنا ولدي يا به بانون هاي ماشى وأنا دلالينا إن كستون تبع الصر وأنا جعلها يصومالي لماذا؟ يا أو عن قبيل كأن له بوم وهذا بوم وشرع يقول شفتي يقول قبيل كذا عصر ما شاء الله كاجوشي بوم وهذا بوم ولي بوم كاجوشي كلية وحي قطعي لتعارفوا إن أصبرتان ما هل يسكو دلو ما هل يسكو قشو ما هل يسكو قحيو ما هل يسكو فقاره ما هل يسكو بلرقيستو ولا النمو رير هبل عادي وي إلهي بقران كل شيء مركب حتاس واجر تاي لكن ضد غلط إلا نقضي عيب صنع وينوها منكس محل هذا مركب وحن لي هاي هاو دايما لعنينا تايمكو 7 6 8 وقت قاتلت إمو لكن شيء كذا اسكت دبر عيدو ده هدو كهر مرادي كوتالا هذا كأكشدنتها أنا وسوحن كلنا هاي كعمة فرن سيفتي وعن ميل قروح بدن وحد وهي الدونتي أديكوا مساجد عاوناية يا وحسيلي كره qof nasiib la heli kara oo Minnesota dhexdeeda ka heli kara marka waxaan idin leenahay soo dhawaada meeqsada adduunka dacaladiisa ka joogtaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kaloo rabaa inaan in yar idin ku dirsado waxyaalo badan oo soo kordhay baa jira oo aan habeenkaas rabo in aan ku daro eventiga maanta wiil yar oo Soomaaliya Minneapolis ku dhintay waxa uu ku dhintay iyo waxa ay yihiin waxaasu faahfaahin badan baan ka wadaa anigoo raba in aan sameeyo awareness in aan idin toosiyo
oo aanu soo saarno because ilmaheenu waa beautiful, ilmaheenu waa ilmo qaali ah, hooyaan nahay. marka waxaan rabnaa inaan ogaano maxaa ilmaheena ku dhacay, waayo cunugaas u dhintay, kuwa kale maxay u dhinteen oo meeshaan ka dhintay. waxaasoo dhanna waxay yihiin waxay u dhinteen side effectigooda meesha laga helo. intaba hameenkaasaan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo. waana idin salaamayaa. sheekadana dabcasar baan ku wareejiyey. aad iyo aad baad u salaaman tahay imaam malyuun insha allahu tabaaraka watacaala. waxaan rajaynaynaa usbuuca ku xiga waa axadda sideedda axadeeda kale ama sabtideeda kale ama jimcaha kale ee ku xiga. waxaan insha allahu rajaynaynaa inay xafladdu ka dhici doonto magaalada wilmar oo lagu invite gareeyey inaan ka khudbayo jimcaha soo socda oo berito aan ka khudbaynayo gobolkaasi aayo jimcihiisa ku xiga insha allahu tabaaraka watacaala. isla goobtaasi habeenkaasina iyaduna inay ka dhici doonto muxaadaro aad iyo aad u qiimo badan iyo weliba maama malyuun MMS oo marti idin ah oo aad iyo aad looga taageero magaaladaasi wilmar iyo dabcasar oo isagana aad looga taageero maasha allah. marka waa idinla joognaa wilmar iyadana dilaa gudmaayo maama malyuun oo gaarigeedii soo cayrsan doonta iyo dabcasar oo gaarigiisii iyo hoteelkiisi soo cayrsan doona halkaas buu imaan doonaa dilaa gudmaayo wilmar. waa jimcahan soo socda jimcihiisa ku xiga insha allahu tacaala oo maalintii aan ka khudbayno doono masjidka halkaasi jaaliyadaasi oo ah jaaliyad aad iyo aad u qiimo iyo qaayo badan una gargaartay xaqa taageertayna diinta ilaahay iyo masjidka aad iyo aad baan u salaamantay. waa jaaliyadii koowaad ama masjidkii koowaad maama malyuunay oo laga taageeray hadda ka hor sanad ka hor yacni 2 sano ka hor masjid kaarmeel aad buu u taageeray ilaahay khayr ha siiyo ilaa 60 kun bay ku taageeray. laakiin masaajidkan sanadaha kan dambe waa masjidka kaliya masjid wilmar ku yaala ee taageeray oo una ballan qaaday inay jimcahan soo socdo jimcahan berita jimcihiisa kale ay siin doonaan insha allahu tacaala. adiguna aad booqan doontid insha allahu tacaala maama malyuun. marka jaaliyadaas wilmar iyo culimadeeda iyo odayaasheeda iyo dhalinyaradeeda maxaad ugu ducaynaysaa? aad baan horta ugu faraxsanahay inaan maqlo masaajid ku yaala state Minnesota baa soo dhaweeyey in masaajid la caawiyo. anigu in badan baan Minnesota deganaa, wax badanna aan ka qayb qaatay ama aan wax ka bixiyey ama aan ku sibood gareeyey in masaajida laakiin dadkii masaajidyada noo hayay inuu nin walbaba u qaatay inuu asagu isku leeyahay. maxaan ku leeyahay bam oo bam haddana bam. waxaan kuu sheegayaa inaadan masaajidyada adigu aadan lahayn ee masaajidyadu ay ka yimaadeen allah dartiisna inaan u baxsanay una dhisay guriga ilaahay allah iskale guriga ilaahayna uu yahay. laakiin waxaa kelmadaha la bartay oo ah waxaad u baxsatay weeye lacag aan dadkii loogu talagalay ama wixii loogu talagalay aan lagu bixinaynin in dadka laga dhaadhiciyo waxaad u baxsatay bay kuugu jirtaa. taa waa ka soo horjeedaa anigu xaraam. iyo in masaajidka laga dhigo waa wax qaali ah, salaada in lagu tukado iyo in sadaqada lagu aruuriyo. ma ahan masaajidku taas. masaajidku waa in salaada lagu tukado, sadaqada lagu aruuriyo, dumarka lagu dhaqaaleeyo, caruurta lagu dhaqaaleeyo. rasuulka noo duceeyey xaggee nagu ogeydeen bam oo haddana bam xaggeena lagu ogaa rasuulka noo duceeyey. waxyaalo badan oo aan rabin maanta inaan halkan ku faafiyo baan uurkayga ka buuxo. khilaafaadka qoyska iyo la rabay xalintiisa waxaasoo dhan waa soo wadnaa. laakiin masaajidka wilmar ee dabcasarow ku soo dhaweeyey waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryay inay wax badan oo khayr in ilaahay siiyo. waxaanan ugu ducaynayaa magaalada wilmar magaalo ducaysan oo khayr badan hesho ilaahay inuu ka dhigo. shacabka wilmarna aad baad qalbigayga ugu weynaateen marka masaajidka wilmar maadaama uu soo dhaweeyey marti stateka noo joogta maadaama uu soo dhaweeyey waxaan leeyahay waxaan u malaynayaa inay horta soo bixi doonaan kuwo badan oo ku dayda igu dayo igu sawir inay ka dhici doonto masaajidka wilmar igu sawir. waxaa idiin sheegayaa aad baana idinku ducaynayaa. magaalada wilmarna waxaan leeyahay dadka jooga iyo shacabka jooga waxaa la iisoo sheegay inay aad ii taageeraan inkastoo meelo badan oo soomaalidu degan tahay i taageerto. haddana maadaama aad marti ilaahay qofku inoo keenay ah ku soo dhaweeya masaajidna xambaarsan inuu masaajid wax u qabto. reer wilmar waxaan leeyahay soo dhaweynta dabcasar aad soo dhaweyseen aad baan idinku mahad celinayaa. masaajidkaasuna masaajidka ugu horeeya masaajidyada ku yaala Minnesota buu noqonayaa oo ugu khayrka badan insha allah biidni illaahi alkariim. waa ugu weynahay ma ahana waa ugu khayr badnaha ka fiican. marka masaajidyada isxilqaami waayo masaajidku waa beydka ilaahay. laakiin waxaa idiin sheegayaa nimanka ku jira baalaha inaa idinka rifaayo anagoo dumar ah. waxaasoo dhanna waxaan idin leeyahay shalay way aamusnayda maanta way hadashay iyaa aamusinaya bam oo haddana bam sheekadaas waa dhamaatay. malyuun waxaan ku gabagabeynayaa su-aashaan ah masaajidyada waxaa taageera ganacsatada 5,000 oo ganacsato ayaa magaalada degan stateskana kaba daranba. marka ganacsatadaas maasha allah
maxaad kula talinaysaa hadday ahaan lahayd daykeero malafkeero makhaayado yacni personal tragley transportation caafimaad farmashiyaal makhaayado cid walba ama dadka caadiga oo shaqaysta soomaalidaas khayrka jecel ee masaajidadaas faraha badan ee gobolkan dhistay masaajidkaas dhibaataysan ee maxkamadda public ay tahay aysan qarsoonayn maxaad kula talinaysaa reer Minneapolis waxaan kula talinayaa hore shacabka horta ganacsatadu waa shacabka aniguna mar walbaba shacabka waan soo dhaweeyay aad baana gacmo furan ugu soo taqaanaayeeto ugu soo dhaweeyay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego ganacsatada Minnesota dee qof wax loo tilmaamo way ka weyn yihiin masaajidada markay taakuleynayaan wax loo tilmaamo kuma taakuleeyaan haddii ay masaajid wax siinayaan iyo hadday qof wax siinayaanba horta meeshii wax ku jiraan baa wax ka soo baxaa nin walbana wuxuu geystaa ganacsigiisu gaaraa waxaan ku boorin lahaa maadaama uu dabcasar marti inoo yahay maadaama uu masaajid yahay wuxuu wado maadaama aad shalaba masaajid ka qayb qaadan jirteen inaad maantana sidaad kuwii hore uga qayb qaadan jirteen iyo si ka fiican aad ugu dadaashaan waxaadna ogaanaysaan masaajidku waa guri ilaahay guriga ilaahayna ilaahay baa taakuleeya marka meeshii alla leeyahay wax siinta aad wax siinaysid waa wax alla kaa soo qaaday marka taas inaysan isweydiin badan lahayno uu qof walbaba asagoon eventiga haddaba waxaan arkayay gabdho ii soo dhiibay lacag iyagoon eventiga imaan karinin haddana lacagtii sadaqada masaajidka la baxayay marka ganacsatada Minnesota waa meel Soomaali badan waana meel ka horeysa gobolada Mareykanka oo dhan soo shacabkeeni baa ku badan soo ganacsatada baa ku badan soo ayaga ruuxoodu waxyaalo badan oo aan anagu u ognahay ama ka daahan oo waxay yihiin aysan aqoonin baan jecelahay habeenkaas inaan xoogaa ka taataabto marka anyway kulligood waxaan leenahay isku soo duuduubo shacabka Minnesota way u baahan yihiin shacabka Minnesota masaajidka dabcasar shacabka Minnesota masaajidka dabcasar uu maanta u ordayo volunteerka u raadinayo shacabka Minnesota wuu u baahan yahay masaajidkaas dan kasta oo Soomaali leedahayna masaajidkaas waa u baahan yahay ama masaajid kasta oo Soomaali ay leedahay iyo meelo badan oo kale oo ku hoos jira oo aan ka sheegi doono insha Allah meeshaas oo aniguba aan rabo inaan ka hadlo masaajid inuusan masaajidka kaliya uusan noqon inuu noqdo qaybo badan wax badan aan soo aruuriyay ama xog badan aan soo aruuriyay in masaajid aan leenahay laga helo ama masaajideena laga helo insha Allah marka ganacsatada Minnesota waa soo dhaweynaya sidoo kale maxaad maamuliyeen kula dardaarmaysaa ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolada Mareykanka ayagana maxaad kula dardaarmaysaa sidoo kalena meel kasto oo dunida dacalada ay joogaan مثلا yani waxaan ka warhayaa dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee jooga dalka Australia wadaadda magaalada Minneapolis ka tagay 400 kun bay ku soo taageereen marka ganacsatada Soomaaliyeed waxa hadda lacag badan ma hadda waxa haray 200 kun marka meel kasta oo Soomaali ay joogaan ama Yurub ama Australia ama Mareykan dhexdiisa maxaad kula talinaysaa Mareykan Yurub Afrika meel walba ay joogto waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed de horeyna wax waa u bixin jireen haddana waxaan kula talinayaa masaajidkaas maanta uu u taagan yahay ama aan u taaganahayba anigu waa u taaganahay dabcasarna waaba nin qaybad ka tahay baa masaajidka aniguna waan u taaganahayo hiil iyo xoolo iyo xoog iyo hadal iyo maal intaba inaan ku darsadaan diyaar u ahay soo halka waran u hadlaayo baaba ajira marka shacabka Soomaaliyeed ama ganacsatada Soomaaliyeed ma ahan Minnesota eventigaana ka dhici doona laakiin waxaa laga yaabaa inuu Australia gaaro inaan Australia aniga dabcasar inaan tagno oo yaa noo diiday bam cid noo diidaysa malaha waa tagi karnaa soo ama waxyaalo badan oo Soomaali horta Soomaali indhii baan u fiiqnay Soomaali horta anu geesiyad baan way sakiin barayaay amaantaad barateen maalin walba in idinka leeyahay amaan inaad raadisaan horta anigu anaa koobka ku jabiyay inaan is amaano laakiin waxaad ogaan doontaan masaajidkaas inuu dhismayo laakiin waari meysida war haydin ka haro dhammaantiin meel kasta adduunka dacalisa ka joogtaan ayadoo faahfaahsanna hameenkaasaan ka hadli doonaa insha Allah biidhnillaahi alkariim dabcasar oo adaan kugu wareejiyay inagana jir aad iyo aad ayaad u mahadsantahay imaam Alyuun Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu ku siiyo barwaaqada adduun iyo mid aakhiro Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu dambigaaga iyo dambi waarkaaba u dhaafo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryayaa waalidiinta Ilaahay inuu naxariisto oo janno u geliyo Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu caruurtaada ku xifdiyo kana dhigo imaamo saalixiina oo anfaca dalka iyo dadka iyo diinta
إلهي سبحانه وتعالى أولادها كو حفظيه أولاد الله كو حفظيه أولاد الله كو حفظيه أولاد الله كو حفظيه إلهي مستقبل في عن ومشرق الله كو سيو أدي الله كو حفظيه نور المعان أو قيمة يقايل الله كو سيو خيرك أتعشى وناك أتعشى الله كو سيو زوجك أتعشى ودوك أتعلى الله الله كو سيو زوجك أتعشى ودوك أتعلى الله كو سيو بم أدي لا يكيد ما هيو waxaan ku gabagabeeyay ma sha Allah MMS ma milyan oo idin la habeenkaas axada 8 bisha waa axada soo socota maanta waa khamiis bari waa jimci saadama waa hadii ay ku idmaayo sida taal waxa weeyaan waa axad waa 6 7 ilaa 8 soo dhaw xafladaas seegaani ujeedo taageerada masjid al-Qur'aan wa sunna iyo waliba barnaamijyo aad u xiiso badan oo qoyska ku saabsan oo qarankeena ku saabsan oo wax walba ku saabsan wassalaamu alaykum wa rahmatullahi holka safari ya adreeska waa Lake and Forth. Lake and Forth? Minneapolis, Minnesota. Lake and Forth, Minneapolis, Minnesota. Minnesota. هذه بعد ما سنتين هذا أيوه قليل ما مليون ما شاء الله قليل لا كيلو البلدان هو قدم علي كمين علي كمين البلنبلية العبد الوقي علي كمين ما شاء الله وانك نيفيقا وانك كمان دوسكا ما شاء الله وهلك ينوجه والسلام عليكم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كل دين كصلي يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.